بسم الله الرحمن الرحيم والله لا الكسر ده هذا برنامج كنا ربع بالشدة ما طلع وحنا كسر قاعدين برنامج كا وحلا يقعنا السحر بركة أما الله يقعنا إنفليشن كا مركا بالكل وحن إن بدو وحن مغلي سابري عندما وحصلنا نقطة السحر بر باجرة ضد بدو هاركس مظاهرات وكعبان الدبات هذا وكان السحر بركو وهذا مودع إلى هذا إن الحل هلين الدبات هذه أي تايم متسعطون مركا محاكي مركا إن بروحي ركها الله يسكت ديا وحن كان مغلي السحر بركة iyo sidaba looga hortagi karaa ama se loo jin karaa marka hadaan marka hore bar isku dayna qeexa waxa loo yaqaan sixir bararku waxa weeye shayga marka qiimihii uu marka taagnaa oo kor u kacay adduunyada inta badan hargeysa isbedel la socda wadamo badan baa marka waxay dagaal kula jiraan oo noqoto wadamadan horumar wadamadan galbeedka oo kale waxay hadii jeer la dagaalamaan inuu magaranaysa lacagtoodu kacdo kor u kacdo oo waxay isku dayeen jireen lacagtaasi meel taagnaato si magaranaysa uu noqdo stable ama mid degan dhaqaalaha wadankaasi ama lacagta wadankaasi laakiin waxaan moodaa bariyahan dambe inay wadankeena inta badan waxaad arkaysaa dadkii oo ka caabanaya magaranaysaa sixir bararkaasina uu noqday magaranaysaa mid ummadii baabiyey oo dhibaato weyn u geystay waayo qofkii oo lacag haystay ayaa waxa laga yaabaa inuu caawa sixdo bari markuu soo tooso lacagtiisa ama ay qiimo dhacdo 70% ama 50% oo lacagtii marka ay dhibaato soo gaadho qofkina marka lacagtu ku xisaabtamayo isla wax haysataa lacag u dhiganta $200 ay lacagtiisa bari noqoto $100 taasina waxay keenaysaa inay noqoto in kalsoonidii marka lacagta loo hayay shilinka ay meesha ka baxdo oo qofkii markuu maanta shaqaysto wixii yaraa helo markaasi kadib intuuna seexanin uu dollar u bedesho soo magaranaysa ay lacagtiisa la bari ana wax iska bedel laakiin qofku markuu dollarka u bedesho dollarka wax iska bedelayaan hadda $100 haysid $100 u baahanaya wixii ku goynayna uu ku goynaya qiimaha halkan buu taagayay marka dhibaatada haysata shilinka aniga waxay la tahay waxa weeye baahidii loo qabay ayaa yaraatay waa markaad wadankii joogta inta badan uma baahanaysid shilin wax walba dollar buu ku socdaa marka wixii loo baahidiisu ay yaraatana qiimihiisa baa dhacaya cidda markaa suuq cidna u baahanaysa markaasi marka waxa hadii aan shaygan loo baahana shaygaas qiimo ma yeesha marka waxaan isleeyahay baahi la'aanta aan loo baahnayn ayaa keentay lacagtii shilinku inay hoos u dhacdo ay meeshii ka baxdo inta badan dad waxay ku dacwoodeen badnaan qolooyinka siyaasiyiintu doolarka lagama maarmo wax walba soo iibsano dollar buu u baahan yahay dollar baan ku xidhanay marka taasaa keenaysa inuu sicir bar yimaado anigu fikirka waxaan isla fikirka ka duwan baa jira wadamo badan oo waxa jira qaaradda Afrika ku yaala oo wax badan aan dhoofinin oo dibadda u dirin oo u baahan dollar inoogana baahi badan laakiin lacagtooda aan marnaba isbedelin wadamada hadda agtid wadamada jaarka oo kale waxa intooda badan wax badan dibadda ma dhoofiyaan waxa u baahan mar walba in markii wax iibsanayna dollar helaan haddana lacagtooda isma bedesho inta badan meel bay taagantahay hadday isbedeshana waxa dareemi kara ma teenan magaranaysa maalin cirka maraysa maalin dhulka tagaysa ma inaga waxa laga yaabaa qofkii inuu isagoo week tijaara week dambe magaranaysa faqri noqdo sababtana noqoto magaranaysa sixir bararka marka ani ismail magaranaysa taasi ayaa cudurdaar oo baahidaan u qabno dollarku waa sax waa loo baahan yahay in wax walba soo iibsanayna wax ku keensanaa dollar laakiin anigu midaan isla waxa jirta waxa weeye maamul la'aan ayaa jirta oo waxaan jirin hab wanaagsan oo loo maamulay ayaan jirin tusaale haddaan soo qaato wadamada imka adduunka oo dhan bangiyadooda ayaa hogaamiya lacagta qiimaheeda tusaale kale waxay markii lacag waxa ay dirayaan xawaalado oo kale waxay eegayaan bangigu maanta intuu ku sarifayo intaan baa lagu sarifaya laakiin marka la waayo bangi adag oo wax qiimihii jaangooya ama qiimihii gooy isagu waxa dhacaysa marka qof walba inuu wuxuu doono uu sameeyo waxa kale ma nimanka tijaarta ama shirkada noqoto ama ganacsatada noqoto inay waxay doonaan ay sameeyaan iyagoo magaranaysa cid ay ka baqayaan marka aanay jirin cid ay ixtiraamayaan aanay jirin sharci qabanayaan oo jirin bangi ay raacaan oo ay daba socdaan oo lacagtii ka sarfi kala socdaan maadaama jirin marka waxa weeye inay go'aansadaan marba say doonaan wax ku sarifaan say doonaan ay sameeyaan taasina hadii jeer waxay keenaysaa oo dhibaato ku noqonaysa dadkii masaakiinta ahaa ee aan meel $2 ka soo galeyn inay nolosha ku adkaato hooyada marka tamaandhada iibinayso kale hooyada caanaha iibinayso kale qofka odayga ama hooyada neefka xoolaha iibinayo kale dhibaato soo gaaraysa markaasi way isagu wuxuu helay waa shilinkiina qiimo ma sameeyo waxba laga iibinayo sababta kale qofku markuu shilinkii wixii soo helo waxa leeyahay lacagtii soo bedel dollar noo keen taasina qofku ku adkaanaysa markaasi marka aad iyo aad bay muhiim garanaysaa sidaan anigu fikirkayga ay la tahay wax laga yaabaa inaan wax fikir kale inay jiraan waxa jirta islaahay sixir bararka jeer waxa keenaya waxa weeye waxaan jirin maamul iyo nidaam ka shaqeynaya oo arintaasi hadee jeer diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan oo inta badan aan isleeyahay
waxay ahayd inay u damqadaan shacabka masaakiinta baaba'aya iyo dhaqaalaha magaranaysaa maalina cid ka tegaya maalin ka tegaya waayo intuu wadan caynkaa ku jiro una lacagtiisu shilinkiisu aanu fadhin ma lacagta markaa wadanka laga isticmaalaya aanay fadhiyin dadkaasina horumar badan ma samayn karaan dadka masaakiinta dhibaataa soo gaadhaysa tijaarta dhibaataa soo gaadhaysa had iyo jeer waxaa lagu jirayaa khalkhal dhinaca baayac mushtariga had iyo jeer waxaa lagu jirayaa jahawareer dhinaca suuqa marka in labadaasi ay jiraanna anigu ismaili magaranaysaa horumar ayuu wadankaasi sameynaya ummadaasi nolosha maanta ay ku jirto ayay weligeed kusii jiraysaa oo nolol ka fiican ma heli karaan way adduunka maanta waxaa lagu dagaalamayaa waa dhaqaale wadan walba wuxuu doonayaa ama madaxweyne kasta wuxuu doonayaa inuu wadankiisaasi noqdo wadan dhaqaalihiisu stable yahay uu degan yahay si ummadiisu ay horumar u samayso oo ay meel fog u gaadho meesha ay taagan tahay meel kasii fog ay gaadho laakiin marka maanta innaga uu inoo haysa jahawareerka dhinaca dhaqaalihii ee noloshii aan la xarbayno ee lacagteeni degi leedahay ee suuqeeni jahawareer ku jiro waxa la rajadeena mustaqbalku ma noqonayso mid aad iyo aad u fiican waxaanad arkaysaa mustaqbalku inuu inta badan yahay mid aan sidaa usii qurux badnayn marka waxaan leeyahay waxa weeye in mar walba ma garanaysaa dadka markaa maamulka haya iyo cidda markaa ay ka go-aysa ma ganacsataa noqoto inuu nidaam jiro inta badan waxaad arkaysaa markaad weydiisay tirahdo maxaa dhibtan keenay qof walba wuxuu ku andacoonaya oo iska riixaya dembiga qaar waxay kuleeyihin anagu sharciga raacnaba ma naqaano qaar waxay kuleeyihin ma garanaysaa xal kaloo meesha jiraa ma jiraan wax kaloo samayn kara ma jirto waxyaaba badan baa markaa doodo badan baa markaa jiro iskarab yaacaya laakiin doodahaasi dhammaantood waxa laga dhaxlay waxa weeye in meesha ay timaado jahawareer iyo inuu dhaqaalihii degi waayo oo mar walba sixir baraka noqdo marka tusaale oo kale wadamada jaarkeena oo kale dee dollar lama qaato suuqa markaad tagtideed wax iibsanaysid waxaad wax iibsanaysaa waa lacagta wadanka laakiin waddankeennii waxaad arkaysaa in dollar wax loo kala iibsanayo marka adduunkana lama arag wadan laba lacagood ay ka wada shaqeeyaan oo isbarbar socdaan dollarkaasi waa loo baahan yahay laakiin dowladdiina maaha dowlad dollar soo saaraysa waxay soo daabacaysa waa shilinkani cad uma baahna oo dowladdii baa ka maarantay shacabkii intoodii badneed baa ka maarmay dadka masaakiintunbaa u baahan magaraysa qutal daruuga uu ku xidhaya marka haddii lacagtii dowladdii soo saaraysa ay ka maarantay oyna marnaba qaadanin iyadu shacabkii tijaarta lacagta haystaan ay ka maarmeen dee lacagtaasi meel ma gaadhayso khasaarunbaa inta badan unbaa imanaya marka kolley waxaa is leeyahay haddii aan u dego qodobka labaad sidee dhibaatadan maanta ummadii hadhaysa ee baabiisay see looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa waxa weeye in ay dowladdu iyadaa waddanka mas-uulka ay la timaado nidaam hufan oo saxan oo arrinta wax lagaga gudbi karo tusaale oo kale lama waayin maanta dad shaqaalaha waayo waxaa jira dad badan oo akademikra aqoonu leh dad badan waxaa jira khibrada leh oo bangiyada adduunka kasoo shaqeeyo maanta waddanka jooga ama si fudud loo heli karo oo arrinta wax ka qaban kara oo xal keeni kara oo aqoontii ay soo barteen kasoo barteen wadamada kale ama bangiyada caalamiga ay wax kasoo barteen ku dabaqi kara oo arrintan maanta lagu jiro wax looga qaban karo waxaa kaloo taa kasii muhiimsan waxa weeye systemku markaa inuu jiro iyada lafto sharci la raaco oo qofkii sharciga ama shirkadii ama ciddii sharciga ku xadgudubtaa in wax laga qabto markaa sharci ummaddan ay raacdana in la hela waa muhiim waayo hadduuna bangigii sharci lahayn uuna bangigii lacag soo saaraynin uuna bangigii wixii nidaamin karaynin dhibaato ayaa mar walba meesha joogaysa kolley anigu waddanka norway aan joogo haddii aan ka hadlo lacagta laga isticmaala lahada cronka waxaad i jeer go-aamiya bangiga dhexe waddanka norway markii xawaaladu aroortii suuqa ay furaan xafiisyadooda waxay soo daabacdaan wixii bangigaasi maanta uu dhigay ama qiimo u jaray in lacagta lagu kala sarifto taan baana lagu dhaqmaa waxa had iyo jeer sixir barar iyo dhibaatana inta badan ma dhacdo marka haddii uuna bangiga dhexe marnaba una awood lahayn dhibaatadaas way sii soconaysaa marka waxa weye in bangiga dhexe la awoodeysiiyo sharci loo sameeyo nidaam loo sameeyo dad shaqaalaha oo professional aqoonteeda la keeno oo dadkaasi magaranaysaa hawsha ay fuliyaan inta badan waxaa arkaysaa qof siyaasi oo magaranaysaa isagu iska qaylinaya oo inta badan wuxuu sheegaya aan cudurdaar waa in la joojiya kana waa in la sameeya kan waa in la sameeya dee theory wax laguma bedeli karaa practical wax lagu bedeli karaa inta badan marka sharci la helo ee dad aqoontoodii la helo ayaa wax la bedeli karaa dadka biniaadamkuna waxa weye dhibaatadu markay ku dhacdeen wax ka bartaan oo ka gudbaan laakiin haddii halkii un la fadhiyo jugjug halkaaga joog ay noqoto dhibtu way soo soconaysaa marka waxaa iman doonta maalin aan waxaan ay adkaanaysa in wax laga qabto ayaa iman doonta marka intaan maalintaa la gaadhi waxa weeye dadkuna ay dee markay dhibaatoodaan ee rafaad ku bato marka dambe dee wax kala iman kara oo xitaa haddii qofkii markuu dee sixir baraka uu ka bixi waayo noloshiisa adkaato dee ninkan tijaarka lacagta la waa dhacaya markaas oo qof baahan magaranaysaa horaa loo yidhi magaranaysaa qofku dee markuu baahdo waxyaa badan buu samayn karaa marka muhiimadda waxa weeye inaan intaa la gaadhin
dadkana dhibaatada lagu daawanin in xalkan degdeg ah la keeno ummadii wax loo qabto 100 jeer baa waxbaa la qabanayaa 2 cishaa la qeeliyo la boodbooday kadibna waa laga aamuso cid wax kama qaban dhibtina halkan bay sii joogtaa masaakiintii way sii rafaadayaan way sii dhibaatoonayaan marka aad iyo aad bay muhiim u tahay mar walba in dadka la doortay ama dadka madaxda maanta jooga ama dad tijaariintu dadkan waa dadkoodii waa ummadoodii waa ummaday ku ganacsanayeen waa ummaday siyaasiyiinta u ahaayeen waa ummaday madaxda u ahaayeen waa ummaday dadka ku ahaayeen u naxaan oo dhibaatada magaraysa ay maalin walba ay soo wajahayso hooyadii markay suuqa timaado ay shaqayso ay weyda haddana wax caruurteedii kula noqotay ama gurigeeda soo shaqo tagtay caruurteedii ay bariiska u raadinaysa ay weydo marka ay weydo ilmaheedii iskuulka waxay kaga bixiso waad arkaysaa iskuullada wax lagu leeyahay waa dollar wax lagu bixinaya waxa lagu leeyahay bakhaarka markaad wax ka soo iibsanayso wuxuu leeyahay dollar keen dee qofka hadduna dollar baahin xaw ka keenaya lacagtiisina marka shil noqoto shilinkan aan looba baahnaynba dhibaata markaa soo gaaraysa taasina waxay keenaysaa inay dhaawacdo mustaqbalka waddanka iyo dadkaba markaa dee waxa weeye in laga wacyigalo in laga howlgalo aad iyo aad bay muhiim u tahay marka anu kolley taladayda waxaan kusoo ururinaya waxa weeye hala keena dad aqoonteeda leh sharcina ha la sameeyo la raaco lagu kala baxo shirkadahana sharci ha loo sameeyo dowladda iyo dadkuna lacagtooda ay isticmaalaan waayo sidaan hore u sheegay adduunka lama arag waddan laba lacag isdhex socdaan oo la wada isticmaalayo taasi waxa laga taasi marnaba ma dhacayso waa dhibteeda yeelanaysaa kulli anigu intaan ogahay maan arag waddan ay laba lacag la wada isticmaalo dhowr waddan oo aan tegay waxa weeye waddan walba lacagtiisa waa la isticmaalaa sarifka wax lagu kala boqo doorka waa la qaataa markaad waddankaa galayso ama waad bedelaysaa kadib lacagta waddankaas wax ku iibsanaysaa laakiin waddankeena maanta arkaysaa in dollarkii aanan shilin ba inta badan u baahnayn oo meel walba doorka aad ku isticmaalayso taasina waxa weeye dhibteeda keenaysa marka waxa weeye lacagtan shilinka ha la xoojiyo qiimo adagoo lagu fadhiisiyo bangiga lacag ha la geeyo ha la xoojiyo dadka shaqadaa qabayaan ha noqdaan dad aqoonteedii iyo professionaalnimadeedii leh oo waxaan aqoon u leh khibradna u leh dhibtana ka saari kara ummadda samarkii haddayna dhaafee 2016 waxaan tegay Djibouti Hargeysa tusaale kale markii aan Hargeysa joogo kale yani umaan baahan ba inaan shilin isticmaalo alla ilaa waxaan u baahday dhowrka jeer waxaad maraan raacay bas oo baskan waxa lagu raacay lacag ilaa 1500 shilin markaasaan baday laakiin intii kale hudheel haday noqoto taxi haday noqoto wixii kale dollar baan isticmaalay marka aniga laftigeedu uma baahanba laakiin dhowr barbardhig isku sameeyo haddii aan barbardhig sameeyo kale tusaale markaan Djibouti joogay qasab bay igu noqotay inaan isticmaalo lacagta Djibouti franka waayo lacagtii inaan sarrifo oo marka aan isticmaalo lacagtii franka way haddaan suuqa tago dollar cid waxay iibinayso qasab bay igu noqotay marka lacagtii dollar kan haystay inaan u bedesho frank farankii baan markaan wax ku isticmaali hadday noqoto in cunto ku iibsado hadday noqoto hudheel iyo wixii markaan u baahnaaba marka intaasaan malaynaya wax tusaale haddii soo qaato tusaalaha labaad oo kale waxaan tagay iyada laftigeeda Ethiopia Addis Ababa oo kale lacagtii markaa doorkan haystay waxa qasab igu noqotay inaan sarrifo oo helo lacag bira si aan u isticmaalo wax uga iibsado waayo dollarka lama ogola inaad wax ku iibsato way waddanka wax lagu leeyahay lacagtiis waa bir lacagta birta wax ku iibsan marka doorkan haystay waan badda waan sarrifay markaan sarrifayna waxaan qaatay lacagtii birta taasaan ku isticmaalay marka tusaale intaas kugu filan ma jiro Djibouti sicir barka ma jiro laakiin waxa keenay inuu yimaado sicir barka waxa weeye lacagtii shilinkeeda dadku isticmaalay baan cidba u baahan cidna ay qaadanaynin taas kadib marka waxaan leeyahay waa in la dhiirigeliyaa shilinka oo dadka qasab ay ku noqoto inuu qofka lacagta dollarkii uu sarifo oo shilin qaato shilinka wax ku iibsado laakiin anigu ismali xal baa la helayaa intay dhex socdaan dollarka iyo shilinkaasi oo shilinkeena dadkaan isticmaalin dollarkiina la wada isticmaalayo meel walba lagu isticmaalayo marka had iyo jeer dhibtu waxay soo gaaraysaa dadka masaakiinteen marnaba dollar soo galeen way qofka dollar soo galeen dollar marka kana ma jirto marka qofka dhibaato soo gaaraysa marka kulay waxaan islahay saddexda tusaalo ayaa ku filan inta ayaan jeclayna ku soo gabay barnaamijkeena arrimaha bulshada dhammaantiin boolaalayaal waxaan leeyahay aad baad maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh